asalaamu calaykum shan luuqadood oo u fudud inta ku hadasho afka soomaaliga maanta waxaan ka hadlaynaa barashada luuqadaha gaar ahaan luuqado u fudud inta ku hadasho afka soomaaliga markii la leeyahay luuqadaas waxay u fududahay dadka ku hadla luuqad hebel waxaa la fiiriyay kelmadaha ay wadaagaan xiriirka asal ee ka dhexeeya labadaas luuqadood qaabka qoraalka iyo dhawaqa xarfaha markii la fiiriyay xarfaha luuqadeena soomaaliga dhawaqa iyo qaabka loo qoro waxaa la dhihi karaa shantan luuqadeed ee soo socda way u fudud yihiin inuu barto qof af Soomaaliga ku hadlo ama qoro luuqadda ugu sahlan inuu barto qof af Soomaali ku hadlo waa afka Carabiga waa luuqadda ay Soomaaliga wadaagaan xarfo ayna luuqadaha kala wadaagin marka koobaad Soomaaliga iyo Carabiga waxay ka soo wada jeedaan qoys luuqadeedka lagu magacaabo luuqadaha African Asianka xitaa waxaa la sheegaa xilliyada qaar in Soomaaliga iyo Carabiga asal ahaan ka soo wada jeedaan Saam bin Nuux luuqadaha Saamiga dadka luuqadaha raaraaca waxay sheegaan in lahjadii Quraysh iyo Soomaaliga meelo badan iska shabahaan waxaana sabab u ah in ay deegaan ahaan isu dhow yihiin Soomaaliya iyo jasiiradda Carabta Soomaaliga iyo Carabiga waxay wadaagaan xarfaha fasiixa ee ku adag dadkaan Carabiga iyo af Soomaaliga ku hadal sida xarafka xa'da xarafka caynka dadka kale ajaanibta ee baranaya afka Carabiga waxa ugu adag ee soo wajaho markay baranayaan luuqadaas waa xarafka caynka iyo xa'da laakiin labadaasba af Soomaaliga waa laga helaa oo Carabiga waan wadaagnaa waxaa sii dheer 5,000 oo kelmadood ayay labada luuqadood wadaagaan Carabiga iyo Soomaaliga waxaa jira kelmado af Soomaaliya oo aad isleedahay Carabi shaqo kuma laha laakiin markii aad raacdo asalkood aad ogaanaysa xitaa inay yihiin Carabi fasiix ama fusxa ah ayaamaha toddobaadka sabti axad ilaa aad ku geysa jimco waan wadaagnaa Carabiga alaabta guryaha taale ee wax lagu cuno sidoo kale inta badan af Carabiga waan wadaagnaa sida saxan koob abriiq lama soo koobi karo kelmadaha aan wadaagno afka Carabiga shardi ayaan kula galay adigaan hadda daawanaya muuqaalkan xitaa haddaadan weligaa ku hadlin af Carabi laakiin aad Soomaali tahay qurbo ku noolow ama dal joog hal sano kuguma qaadanayso inaad Carabiga u barato uguna hadasho sida dadka u dhashay ay ugu hadlaan waa arrin la tijaabiyay hadalkan aan ku hadlayo sanad kuguma qaadanayso haddii aad af Soomaaliga ku hadasho inaad barato Carabiga uguna hadasho sida dadka u dhashay ay ugu hadlaan luuqadda labaad waa afka Cibriga luuqadda ay ku hadlaan dadka Yuhuudda waa luuqadda ay ku hadlaan Israa'iiliyiinta Falastiin haysto shardi ma aha laakiin inuu ku hadlo qof Yahuudiya waxa dhici karta qof Muslim oo Cibraaniya inay luuqad hooyo u tahay luuqadan waxay ka mid tahay luuqadaha African Asian lagu magacaabo sida Soomaaliga Carabiga Amxaariga iyo waliba luuqado kale Cibrigu aad ayuu ugu dhow yahay Carabiga alifbeetadiisana inta badan sida Carabiga ayaa loogu dhawaaqaa inkastoo qoraalka ay ka duwan tahay waxaad arkaysaa in xarafka siinka shiinka nuunka iyo kaafka in sida Carabiga loogu dhawaaqo haddaba maadaama Carabiga iyo Soomaaliga dhawaaq ahaan isku dhow yihiin alifbeetadana wadaagaan waxaa dabiici sidoo kale in Soomaalida u fududaato barashada afka Cibriga luuqadda saddexaad oo u fudud inay bartaan dadka Soomaalida waa luuqadda Amxaariga waa luuqad ka mid ah luuqadaha Saamiga luuqadan waxaa ku hadla 35 milyan oo qof oo ku sugan dhulka Xabasha waa luuqadda labaad ee ugu dadka badan luuqadaha Saamiga markii laga soo tago luuqadda Carabiga inkastoo lagu qoro xuruuf gaar u ah haddana barashadeeda way u sahlan tahay Soomaalida waxaa aad uga buuxa kelmado Carabi oo u sahlan inay Soomaalida ku dhawaaqaan luuqadda afraad ee la dhihi karo way u sahlan tahay inuu barto qof af Soomaali ku hadlo waa luuqadda Talyaaniga waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso maxaa ka dhaxeeya Talyaaniga iyo Soomaaliga waa runta laba reer luuqadood ay ka soo kala jeedaan asal ahaan Soomaaliga waataan soo sheegnay inuu ka soo jeedo luuqadaha African Asian lagu magacaabo halka afka Talyaaniga reer ahaan uu ka soo jeedo Indo-European language luuqadaha Roomaansiga ma ahan Roomaansiga jaceylka ee waa qoys luuqadeed lagu magacaabo luuqadaha Roomaansiga Soomaaliga iyo Talyaaniga haddaba markii luuqad la baranayo waxa ugu horeeyo ee la barto waa qaabka loo qoro inaad akhrin karto waxa meesha ku qoran waxaan wada ognahay in markii la dejiyay qoraalka Soomaaliga dadkii qoray ay raaceen qaabka Talyaaniga u qoran yahay sidaas darteed inta Soomaaliga qorto meel kasta ay joogto waxa u sahlan inay akhriyaan qoraal Talyaani ah xitaa haddii ayna fahmaynin micno ahaan waxaan ogaaday aniga tijaabo aan sameeyay in alifbeetada Talyaaniga iyo dhammaan qaabka loo qoro Talyaaniga ayna qofka Soomaaliga ku qaadanaynin wax ka badan hal isbuuc nidaam qoraal luuqadeed oo hal isbuuc aad ku baranayso waa arrin aad iyo aad u sahlan tusaale jumladan Talyaaniga molto bene sida loogu dhawaaqo ayay u qoran tahay micnaheeda waa fiican aad ayaan u fiicanahay molto bene kelmadda kale aan aad u adeegsanno
gaar ahaan koonfurta bello sida saxda ee talyaani ahaan markaad ugu dhawaaqdo waxaad dareemaysaa xarafka laamka in uu shidan yahay ama 2 jeer uu soo laabto bello siday u qoran tahay wax wanaagsan aad ayaan u wanaagsanahay sidoo kale bambino canug yar ama gabar yar bambina wiil yar donna qof dumar ah hadafka aan ka leenahay waa in loogu dhawaaqo siday u qoran tahay haddii aan soo qaadano jumladan kale ee magaca komisikiyama wax yar ayaad moodaa inay ka yara duwan tahay qaabka Soomaaliga u qoran yahay laakiin Talyaaniga haddii xarafka siida ama caynka uu la socdo xarafka haada waxaa lagu dhawaaqaa ka komisikiyama magaca sida Claudio Marchisio markayna Talyaani barato way ku sahlan tahay maadaama aad akhrin karto qoraalkiisa luqadda xigta ama luqadda shanaad waa luqadda Farisiga afka Persianka waa luqadda looga hadla Iran qaybo ka mid ah Afghanistan qaybo ka mid ah sidoo kale wadanka Tajikistan Uzbekistan afka Farisiga asal luqadeed ahaan xiriir ayaa naga dhaxeeyo marka koobaad marka labaad si guud ahaaneed waa luqad sahlan ama fudud marka xigta waxaa lagu qoraa xuruufta Carabiga oo aan Soomaali ahaan in badan akhrin karno ama aad noogu sahlan inaan akhrino liiskan waxa qaybta dambe ka soo gali karo luqadda Turkiga midda Isbaanishka luqadda Malaayo ee Malaysia looga hadlo tan Indonesia ee aadka ugu ag midda Malaysia haddaba hoos ku soo qor meesha commentiga luqadda aad jeceshahay inaad barato luqadahan aan meesha ku soo sheegnay